عليكم magacaygu waa Marham Cabdiqani Axmed waxaan soo jeedin doonaa natural drug of papaya insha Allah before intiina cashirka guda gelin waxaan isla eegi doonaa objectives-ka aynu cashirka ka leenahay oo ah inaan ogaano deficiency-ka uu leeyahay papaygu sidoo kale inaan u aftirno sidoo kale uses-keega faa'iidada uu leeyahay papaygu iyo constituent-iga ama active ingredient-iga ku jira haddaba papaygu waxa weeyaan small tree with a single stem and rarely branched cake oo ka kooban leaves iyo fruit leaves-keego shape-keegu like lime uu yahay fruits-keeguna waxa weeyaan like pear shaped wuxuuna leeyahay a lot of seeds seed midho badan buu leeyahay sidoo kale wuxuu ku koraa many tropical countries-ka haddaba kingdom of papaygu ko waxa weeyaan Plantia subkingdom-keeguna waxa weeyaan Trangiobionta super division-keeguna waa Spontiophyte division-keeguna waxa weeyaan Magniophyte order-keegu family-keeguna genus-keeguna waa Carkia species-keeguna waa Carkia papaya haddaba uses-ka loo isticmaalo papaygu ko waxa weeyaan inaynu kaga hortagno ama daweyno gastrointestinal tract soo kale intestinal parasite infection-ka soo kale inaynu isticmaalno nerve pain-ga symptoms-ka ama calaamadaha uu leeyahay waa khalkhal ku yimaada lymphatic system-ka kaasoo cause gareeya parasite wound healthy benefit of papaya caafimaad ahaan waxa uu faa'iidada inoo leeyahay waxa ka mid ah inuu ka hortago wadna xanuunka with the fiber potassium and vitamin content waxa ku jira potassium vitamin soo kale papaygu wuxuu caawiyaa heart disease-ka improve digestion inuu kor u qaado dheefshiidka cuntada papaya waa contain enzyme loo yaqaano papain that aid digestion waxaana loo isticmaalaa meat tenderizer so papaygu also waxa ku jira water content labadoodana waxa loo isticmaalaa prevent constipation almistega soo kale wuxuu ka hortagaa prevent cancer wuxuu ka hortagaa kansarka wuxuuna yareeyaa kansarka iyo protect eyesight-ka haddaba active ingredient and dosing constituent waa powerful digestive it is very useful and different use fruits-kiisuna wuxuu qani ku yahay vitamin C-ga vitamin E-ga iyo minerals-ka haddaba appropriate dose of papaya wuxuu ku xidhan yahay xaaladahan soo socda oo ah user age-keega health and several other conditions how does papaya work papaya contain chemical loo yaqaano papain kaasoo burburiya proteinka carbohydrates iyo fats-ka soo kale papaya also contain wuxuu ka kooban yahay chemical loo yaqaano carbene kaasoo dila kill certain parasite and effect wuxuuna saameyn ku yeeshaa central nervous system-ka how papaya distributed disease can be controlled through the use appropriate protective fungi such as copper sulfate